Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan soo qaadan doonaa kulamada la ciyaaray Premier League. Kulankii ugu horreeyay waxa uu ahaa Spurs iyo Brentford waxay ku dhamaatay 2-2, halka kulamada kale ay Liverpool iyo Arsenal iyo Chelsea dhammaantood ay wada badiyeen, halka Manchester United hadda ay marayso 2-0. Toddobaadkan waxaa laga diiwaangeliyay Premier League dhacdooyin cajaa'ib ah. Hal kulan oo kaliya ayaa ilaa hadda bareejo la galay. Kulankaasna waa kulanka Brentford iyo Tottenham. Inta kaleeto waa ay badiyeen, in kalena waa laga badiyay. Tusaale ahaan inta guryahooda ku ciyaarayeen dhammaan waa laga badiyay, inta laga reebo Chelsea, Manchester United iyo Arsenal. Saddexdooda guryahooda ku ciyaaraya kaliya ayaa badiyay, inta kaleeto waa laga badiyay oo laga reebo kulanka bareejada ah. taasna waxay keentay Premier League inuu xamaasadiisa sir u qaado. haddii aan eegno dhacdooyin kale la diiwaangeliyay, Darwin Núñez ayaa noqday afar jaanis oo gool loo filay kaliya ayuu khasaariyay. taasna waxay ka dhigantahay ciyaaryahanka ugu jaaniska khasaarinta badan ee Premier League ka ciyaara ayuu safka hore ka soo galay. waan arkaynaa haddii Leeds United ay celi karto Manchester City, inkastoo aysan celi karin Haaland oo jooga kulma gafaha. waxaa la doonaa kulkaas xigso ka dib ay soo socdaan haddii aan la socdo kuma stadiina joogto waa kuma stadiina joogaaga waxaan ku leenahay mar walba la soco.